بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسنا قيارتا وديغا داوانا ساي كسو دوادا wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay wadahadahan oo kale ka daawataan page-kan waa 9 bisha 5 2026 muuqaal wareedkan tuusaanayo hadduu eebba idmo macluumaad ku saabsan ayaad ku maqli doontaan mucaaradka dawladda Soomaaliya oo diyaar garow ugu jira dibadbax weyn xilli madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu gaaray dalkaasi Djibouti haddaba sidee ayay wax u soconayaan intaanan ku soo gudbin fadlan maqaalka leega saar oo share garay waxay si adiga kula tahay xilligan kala guurka inuu madaxweynuhu halkaasi aado iyo mucaaradkuna inay abaabulaan iyaguna mudaharaad ka dhana dawladda mudaxileedkeeda iyo sidoo kale dadka dhulka laga barkiyay wixii aragtidaada waad ka dhiiban kartaa aynu ku bilownay saaxiibayaal xilli madaxweyne xasan sheekh maxamuud safar uu ku gaaray magaalada Djibouti oo uga qayb galayo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa gudaha Soomaaliya ka soconaya dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo abaabul dibadbax ay uga soo horjeedaan qaad ka mid ah mucaaradka dawladda ee Soomaaliya kooxaha mucaaradka ayaa waxa wada qorshayaal la xiriira banaanbax lagu muujinayo aragtidooda ku aadan xaaladda siyaasadeed iyo sidoo kale muranka ka taagan mudaxileedka dawladda dhexe ee imika shaqaysa uu hogaamiyo mudane xasan sheekh maxamuud safarka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli ay cirka isku sii shareerayaan xiisadaha siyaasadeed ee u dhaxeeya ama ka aloosan dhexdoodaba dawladda iyo mucaaradka kuwaas oo si weyn uga hadlaya arrimaha doorashooyinka iyo hanaanka dawladnimo ee dalka imika uu ku sugan yahay waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal safarka madaxweynaha imika ayaa xilligaasi ku soo aadaya iyo mucaaradka iyaguna dhibaatooyin badan ka tabanaya ee dadkii guryaha laga dumiyay maxay adiga kula tahay saaxiib fadlan muuqaalka leega saar wixii aragtidaada ana fadlan waad noogu reebi kartaa halkan haddaad YouTube naga daawanaysana fadlan muuqaalka leega saar waxaad ka daawan kartaa muuqaaladeeda aniga YouTube iyo Facebook imika aan kala hadlayo YouTube waxaad iga daawan kartaa soo dhafe news